jabkan uu geystay khasaaro hantiyadeed ayaa waxa uu ka kacay suuq boocle oo ku yaala degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir waxaan la sameeyay dadaal dheer oo lagu daminayo dabkaasi kacay dabkaasi ayaa markii hore ka bilowday goob ganacsi oo ku taala suuqa waxaana markaasi uu ku sii fiday goobo kala ganacsi gaar ahaan qaybta bacadlaha waaxda dabdamiska maamulka gobolka Banaadir shirkadaha gawaarida dabdamiska ee gaarka loo leeyahay iyo shacabka degmada Dharkiinle ayaa gacan ka geystay sidii loo damin lahaa dabkaasi maamulka degmada oo ka hadlay dabka ka kacay suuq boocle ayaa sheegay in ka badan 20 dukaan ay ku basbeeleen xaqiiqiyan khasaaro way jirtaa laakiin mid nafeed maaha waxa sababay baaritaankooda ku jirna arinta wixii oo xaqiiqadeeran waa soo gudbi doonaa hadii rabbi idmo tirada guud ee dukaamada gubtay ilaa iyo dhowr iyo 20 waay hadda waxa gubtay baaritaankeeda waa soo gudbi doonaa hadii rabbi idmo sidoo kale waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah ganacsatada suuqa ee waxyeelada soo gaartay saaradana ilaahay madina soo gaartay hadana ilaahay waa naga soo mad gaaray wiil ilma adeer ana iskala dukaankan oo cabdi kariin la yiraahdo ma sha Allah ana dukaan leey kala leeyahay mubaan marka ilaahay ma hadis intii ilaahay waa naga soo badbaadiyay waa kan wujida waxaan kale iyo maartan iyo bas wujida saaradana kala aan soo gaartay ilaahay ma hadis anaga soo gaarsiisay alxamdulillah waa ka badarkaas oo kale ilaahay ma hadis ilaahay waa naga gargaaray aroortii markeedu ka alxamdulillah saakan xaafada jooga waxa maqlay in meesha gubanayso macnaha aniga dukaankeena xaq uu ku yaalaa laakiin dukaanka dad asxaabnayna askale Cabdi Kariim la yiraahdo war kale to walaalkay askalahay dabka soo kacay laga wareelay macnaha alla dimisi loo dhaayne saacad ka dambayso waa sii siyaaday wuxuu ilaahay sabab markay u kaan ay ku baabaa meesha